جزاك الله خير الجزاء. سؤال بقول الله وطني شناد شغلنا سائل كان حولي هاي ilkaha la xirto muxuu sharcigu ka qabaa mararka qaar waxaa dhaca gowsaha iyaga oo bad qaba baa la saarayaa si ilkaha la isugu soo hagaajiyo sidoo kalena fanaxda waa la iska xiraa bismillaah nahyi caam oo guud baa ku yimid masalada ayada ilkaha hadda laga hadlayo lacnadna way ku timid axaadiista qaarkood wixii iliga loo saaro ama loo qoro ama loo dhuubo xarago iyo qurux darteed waa shay xaaraan oo bannaanayd wixii loo sameeyo cillad caafimaad iyo foolxumo xaddhaafo oo aan muctaad ahayn oo bulshada meesha ku nool aan dhaqan u ahayn oo ka bedelan ilkahaadii baa xaddaaf bay noqdeen ummadda meeshaa joogtay oo gobolkaana ceeb ku ah kana baxsan sidii dhaqanka u ahayd bini aadamka markaas waa cillad caafimaad weeye xanuun bay kugu hayaan matalan cuntadii baad ku cun lahayd matalan wixii qurux iyo isqurxin iyo xaraa ku saabsanna ma bannaano wixii cillad caafimaad la xidhiirana waa bannaan yahay gabagabadu waa intaa asal masalo waa masalo dhibadan ha la iska ilaaliyo lacnad baa ka taagan almutafallijaat lilxusni wixii qurux ku saabsan iyo xarago ilka hadda la xidho ama laysku dhajiyo ama la kala fogeeyona xaragay adduunka maanta u badan yihiin cillad caafimaad ma aha wallahu aclam